ugu horeyn waxaan salaamayaa bahda saxaafadda iyo bulshada Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed ee sida tooska noo daawanaysa. salaanka bacdi sidii xildhibaan Cabdicasiis uu sheegay 30kii bisha waxaa dhacay wax fawda ah oo sharciga iyo dastuurka Puntland iyo xoroosaadka golaha baalmarsan. waxaan rabaa in yar inaan ku kabo 26kii bishii November baarlamaanka Puntland waxa uu codsaday in la soo hormariyo ajandaha qodobka 13aad oo ahaa arrinta lagaga hadlayay dekada Boosaaso iyo shirkadda maamusha. 28kii bishii November laba beri ka bacdi waxaa dhacday gudoomiyihii inuu yimi oo ahayd maalintii loo madlanaa in laga doodo inuu baarlamaanka jajoobo codkii ka been sheego kooramkina ka been sheego si jajooban oo ku dhaho codsi madaxweyne baa arrintan la kusoo gudbiyay gacanta loo taago. codsiga madaxweynuhu ama inuu golaha hor yimaado ama inuu official letter soo diro oo laga hor akhriyo ka bacdina baarlamaanku ka doodo dood marka ay dhamaatana markaas in la aqbalo iyo in la aqbalin gudoomiyuhu male waxa la golaha. maalintii ku xigtay oo isla xisaabtan xukuumadeed oo runtii lagu qarinayay qodobada muhiimka ah ee harsanaa waqtiga laga ridayay la yiri hal galo baarlamaanka inta yadatan iyo in badan oo kamid ah waxa ay gudoomiyaha ka codsadeen inay qabaan cabasho dhanka gudoonka ah shaqo kale intaan la qaban cabashadeeda aan gudbino ka hadalno. gudoomiyuhu hor istaagay makarafanadiina waa damiyay waana nagu dhaga adeegay buuqi iyo sawaxan yar oo de shaqo baarlamaan oo kala aragti duwanaanshaha meesha ka dhacay gacan ka hadal kama dhicin cid aflagaaday ma jirin cid dhibaato loo geystay ma jirin kaliya kala aragti duwanaanshihi baa xooga baarlamaanka buuq yar ka dhacay fadhigina waa xiray. maalinimadii shalay ayaa waxa dhacday in xeeraliyuhu soo galo golaha ka bacdina uu dhaho xildhibaanadaasaan eedooda wadnaa xasaanada laga qaado. xeeraliyuhu runtii xildhibaanada xataa hadii buuq dhaco wax dhaco habraac bay leedahay cidii wax kala tabanaysay inuu tago dhageystay ahayd inuu kiiska baaray ahayd wax baarisa ma sameyn kiiska meesha ka dhacayna kiis u baahan xeeraalinba ma ahayn. hadii xataa golaha dhexdiisa buuq yar ama ismaandhaaf ka dhaco mudanayaashu waxay leeyihiin guddi la dhaho guddiga arrimaha golaha iyo anshaxa. arrinta waxay ahayd marka waxa dhacday in la yiri xasaanadii inuu codsaday laga qaado si loo maxkamadeeyo. waxaan rabaa in yar inaan xeer ilaalinta arrinteeda ka hadlo. baarlamaanka Puntland guddiga shuruucda oo gudoomiyuhu hadda midigtayda fadhiyo gudoomiyuhu guddiga shuruucda iyo guddigaas iyo xubnaha iyaga kan iyo xubno kale oo badan baan waxaan qabnay aragti ah in lagu sameeyo dib u habeyn inuu u baahan yahay garsoorka Puntland kadib baaris iyo cabashooyin badan oo jiray. warbixintii guddiga shuruucdana way ku jirtaa hadda dib u baartaan oo golaha ka war akhriyay. dabcan marka laga hadlayo garsoorkan ah xeeraalintu member muhiim ay ka tahay
xafiisyada konsenka laga muujiyay oo cabashooyinka shacabka badan naga soo gaarayaan oo guddiga shuruucda codsanaya in wax laga bedelo ama dib u habeyn lagu sameeyo buu ka mid ah. waxaan dareemayaa in xeer ilaalintu dagaalkaas arrinta annaga sharciga ah waajibka yaga ahayd oo nasaarnayd oo mas'uuliyadda ummadeed ahayd nasaarnayd in dagaal ka galay waayo sifa cadaalada oo sinaana buu wax u soo baari lahaa hadiiba meesha uu ka dhacay kiis mutaystay in xeer ilaalin loo gudbiyo. sida aad la socotaan arrimaha ugu badan ama gundhiga u ah kala aragti duwanaanshaha xildhibaanadan halkan fadhiyay xildhibaano kale oo badan iyo madaxtooyada waxaa saldhig u ahaa arrimaha dekedda Boosaaso iyo shirkadda maamusha ee DP World. waxaan inay cadeynayaa dhacdadan shalay dhacday inay ahayd dhacdo laga soo abaabulay madaxtooyada mooshinna lagu diyaarinayo guriga wasiirka maaliyadda ee aysan ahayn arrin ku saabsanayd golaha dhexdiisa ama guddoonka iyo mudanayaasha. afar kal fadhi oo tagay hadda afartaba waxaan ku soo darnay in laga hadlo dekedda Boosaaso oo xirantay inay xiranta ku sigatay oo ciid gashay oo buuq ka dhacay maqlayseen oo labadaas sano inta hanti umadeed doonyo iyo ay saaran yihiin ay khatar galeen oo qaybtood soo caariday aad ka warhaysaan in laga hadlo shirkaddan oo muddadii heshiiska ay ku qaadatana ay dhamaatay waqti badan dhaaftay heshiiskiina aan hal xabo ka qaban 1% oo kamid ah wixii lagu heshiiyay oo xataa dekedeeni bila xafaar aysan lahayn xafaar xataa aysan lahayn oo ayna soo deysan karin oo cid kale ka soo qaadan karin ama soo gadan karin oo iyada hortaagan tahay. anagu waxaan marnay 1 bishii January 2019 kitaab waxaan ku marnay inaan ilaalino oo adeegno danta guud ee shacabka iyadii baan ku taaganahay iyadaana ku taagnaan doonaa insha Allah taala. madaxweynaha marar badan baa ka wada hadalay arrimaha ku kala duwanaanay wuu arkay khaladka jira laakiin waxa mooda masaaliix imaaraadka ku xiran inay ka xoog badatay in dekedda Boosaaso xal loo helo. arrinta dagaalkan hadda sida muuqata oo madaxtooyada iyo wasiirka maaliyadda ay isla wadeen waxaan dareemaynaa in dagaalkan lagu soo jaangooyay imaaraadka carabta oo ay dhowaan ka yimaadeen madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda. waxaan shacabka Puntland u sheegaynaa waxaan madaxtooyada isku haysano oo ku kala aragti duwanahay waa dekedda Boosaaso iyo shirkadda maamusha ee DP World oo anagu aan aragno in heshiiskeedu dhacay sharci aysan ku joogin hantida ummadda ay qaadatona sharci aysan ku qaadan wixii lagu heshiiyay aysan wax ka qaban dekedeenina u xiran tahay dekedihii dariskeena la ahaana dhisaysa oo horumarinaysa oo si fiican u maamulaysa. horaan uga hadlayno kalfadhigan ka horeeyay DP World waxay u raamtay dekedda Boosaaso dekedda Berbera haddana waa ku celinaya DP World waxay dekedda Boosaaso u raamtay dekedda Berbera B&O shirkaddan leeyahay waa sector kamid ah DP World. imaaraadku waa dal taariikhiyan aan walaal lahayn wax wada qabsi iyo xiriir ganacsi iyo xiriir wanaagsan naga dhaxeeyay laakiin waayahan dambe waxaad la socotaan siyaasadda imaaraadka caalamul islaam ku wajahan inay tahay mid khariban. waxaan hadda dareemaynaa arrimaha xataa doorashooyinka Soomaaliya hadda taagan anagu aan budigaha waan heshiiskii lagu heshiiyay madaxweynaheenu waxa weeyaan ku amaanaynay
heshiiska hadda aan soo galay annagu hadda inaan welinahay dadka uu xaniban yahay arintaana waxaan qabaa aragti ahaan inay tahay arin Soomaaliya iyo Imaaraadka khilaaf baa ka dhaxay oo ogtihiin arin gacmo shisheey ku jiraan waxa hadda loo rakaataynayaan ay tahay in madaxweynaha dawladda dhow iyada wax lagu heshiin u dhamaado firaaq dawli oo dhaco dalkuna qalaas siyaasadeed galo dadku inay saa xulo oo ogaadaan oo xulo socdaan baa fiican arinta dambe aan rabo inaan ka hadlo waxaan hadda baraha bulshada ku arkay xildhibaan xilki laga xayuubiyay xildhibaan xilki laga qaaday xildhibaan xilki hadiiba ay dhacdo xataa in xildhibaanka kiis u qalma oo culayskiisu leeyahay in xeer ilaalin ku soo eedayso xasaanad hakim baa lagu sameyn karaa waaba haday dhacdo iyadoo sharciyana waa la faahfaahin doonaa xubinnimada xildhibaankana qodobku cadeynaya dastuurka cadeynaya qodobka 62 afar sababood buu ku ay karaa geeri istiqaalo inuu isagu dhiibto in ay timaado sababa xilgudo sharcaaneed oo joogta sida xanuuno iyo inuu laba kal fadhi maqnaado iyadoo xildhibaan u gacan taagi karo iyo wax xildhibaan isku bahal gareyn kara ma aha laakiin arinta xasaanada iyo faahfaahinteeda oo gudoomiyaha guddiga shuruucda uu ka hadli doono wadadii loo marana sharci daray ahayd dambi dhacay in xeer ilaalin soo gasho xildhibaan kiiski ku soo gasho xasaanad codsatana meesha kama dhicin intaas aan ku soo koobaya dhacdaas waxay dhacda siyaasadeed